abuurida howl amba ganacsi si aad u dhisato mustaqbal ifaya. Muuqaalkan kama soo horjeesan doono hamigaaga, balse wuxuu kugu boorinayaa inaad hadda howlgasho oo aad isla maanta ka howlgasho. Waxaan kugu siin doonaa waxyaabaha ay naftaadu u baahan tahay si ay isbeddel u samayso. barnaamijkaad la socoto waa horumarinta nafta. aan bilowna saaxiibayaal. Number 1, marka ugu horeysa dhiirigeli naftaada. Waxba ma qaban kartid adiga ilaa inaad marka hore og tahay inaad qaban karto wax kasta, aadna ku baraarugsan tahay inay naftaadu qaban karto oo ay la imaato dadaal oo kaliya. Number 2, qorshe. adigoon waxba qorshe ah wadan misne aadan ogeyn meel aad wax ka bilowdo, waxba ma qaban kartid. marka ugu horeysa qorshe la imow. waxaad samaysaa book note ah iyo qalin inta soo qaadatid, deedna fariiso meel kaligaa ah cidna aysan kusoo dhexgelayn. kadib waxaad qorataa dhammaan qorshahaaga adigoo mid waliba u samaysanaya ciwaan guud. kadibna isweydii su-aashan: maxaan uga baahanahay si aan u shaqo galo? riyooyinkaagana qoro dhammaan wax kasta ood u baahan tahay adigoo ka dhiganaya qorshe waliba mid aad og tahay waxaad qoranayso. loomana baahna waxaadan awoodin inaad samayso inaad qorato. just ka bilow wax waliba basic. Number 3, ka fikir qorshaha aad qoratay sida uga howlgali lahayd. markaynu diyaarsano qorshe kadib waxaynu u baahannahay inaynu ka fikirno sidee baan is waafajinaa waxa aan qoranay iyo shaqada. wax kasta oo la bilaabaa waxaa qasab ah in laga sii fikiraa maxaa ka imaan kara. marka hore faa'iido iyo khasaare aan haddaba dhahno. tusaale ahaan, waxaynu furanay goob ganacsi ah. marka hore waxaan diyaarinay qorshihii aan ku bilaabi lahayn. kadib waa inaan kasii fikirnaa meeqaa ayaanu khasaari karnaa, ama waa inaanu kasii fikirnaa meeqaa ayaanu faa'iidi karnaa. waxa ka dambeeya waa inaad mar walba ka fikirtaa. tusaale kale aynu dhahno waxaynu furanay YouTube channel. kadib waxaynu qorsheynay wax ugu baahan yahay inaynu YouTube uga shaqaysano. waanu ka fikirnay waxyaabaha ay dadku xiiseeyaan. kadib waa inaynu kasii fikirnaa inay macquul tahay inaan la daawan muuqaaladeena, ama inay macquul tahay inay dunida oo dhani laga wada daawado. Number 4, inaad ka dhabayso waxyaabahaas. wax baad qorsheysay in badan, waad ka fikirtay, haddaba maxaad sugaysaa marka? just inaad ka dhabayso oo aad bilowdaa waxa aad qorsheysatay si aad ugu horumariso noloshaada. Number 5, samayso dhigaal. dhigaal waxaan kala jeedaa inaad wax meel dhigato si aad hadhow usii horumariso qorshahaaga dambe iyo isbeddelka nololeed. aynu dhahno hormuud Soomaaliya waxay leedahay dhigaal markaynu ku shubano lacag ku hadal ah. soo lacagtaadu ku shubashada hadday badato waxa mar walba badanaya dhibcahaaga. soo hadhow markaad weydo lacag aad ku shubato way ku caawinaysaa. waa si la mid ah dhigaal inaad samaysato waxay kaa caawinaysaa inaad hadhow dambe aad sii ballaariso qorshahaaga dambe iyo isbeddelkaaga nololeed. Number 6, wixii aad dhigaalka u samaysay ku bilow arrimo kale oo aad adigu danaynayso. aynu dhahno waxaad tahay shaqaale, inkastoo aysan ficnayn mowduuc gooniyaan uga hadli doonaa shaqaale, balse waa tusaale. waxaad qaadataa bishii $100. inta ay naftaadu u baahan tahay ka jar. kadib in kale oo dhigaal ah ayaad meel u dhigtay. soo sanadkii lacag fiican ayaa kusoo baxaysa. miyaad ku ciyaaraysaa marka? no, waxaad ku samaysanaysaa horumar kale. waxaad kusii ballaarinaysaa ganacsiyadaada. haddii aadan ganacsi ahayna aad ku jirto waxbarashadaada ayaad ku horumarinaysaa. waxa markaas ay naftaada u baahan tahay ayaad ku horumarinaysaa. la soco muuqaaladeena xiga. antil muuqaalkeena xiga saaxiibayaal, waxaan kaga tegayaa khayr.